keliya aysan shabaab la diririne ciidamadaas in loo samaystay in dadka Soomaaliyeed lagu caburiyo waana kuwii lagu caburiyay magaalada Muqdisho dadkeeda iyo kacdoonkii magaalada Muqdisho ka jiray bishii February iyo Maarso iyo Abriil ciidamada noocaas oo gado dhibaatooyinkii ka soo geysteen la og yahay ayuu madaxweynaheennii Axmed Qoorqoor go'aansaday asagoo wasaaraddiisa amniga oo anigu aan mas'uul ka ahaa la tashan inuu ku daabulo magaalada Dhuusamareeb ciidan kun gaaraya geeyo taliyihii muxuu ahaa gobolka Banaadir ee booliiska Colonel Farxaan Qaroole in halka la geeyo ayadoo la og yahay marka la geynayay magaalada Muqdisho qaraxyadu ay ka dhacayeen oo qarax weyn oo musiibo gaarsiiyay deegaamo xamarweyniga halkaas in maaragtay Farxaan Qaroole uu ka degay magaalada Dhuusamareeb si uu dagaalka lagu qaadayo ahlu sunna wal jamaaca waxba galabsan oo uga qayb galo taasi ayaan daro weyn bay ahayd in ciidamada qaranka la marin habaabiyo oo hadafkoodii inta laga duwo Dhuusamareeb habeenkii khamiista oo la soo galay khamiistii hadeertan maalinkan iscasilayay habeenkeedii garoonka Dhuusamareeb khatar bay galiyeen inay qabsadaan geesay ka soo fariisteen laakiin dagaal ma dhicin ciidamadiina meeshaas u jirta 2 kiiloomitir baa lagu abaabulayaa oo aysan aadayn shabaab oo ay u socdaan ahlu sunna wal jamaaca si nabadgelyo ah ku tagtay dhulkoodii ayagu ay lahaayeen oo ay deganaa jireen oo aysan dhibna bulshadana ku hayn maamulkana dhib kuma hayaan arrintaas marka waxay ahayd arrinta runtii aan rabay inaan sida wanaagsan u sharaxo waxa ku soo hartay arrinta ahlu sunna wal jamaaca ahlu sunna wal jamaaca madaxdooda Macalin Maxamuud ayaan wada hadalnay wuxuuna dhiibay oo ii dhiibay furaha xalka wuxuu yiri madaxweynihii waan la soo xiriiray dad ergaa oo akhyaarana waa u soo diray wuuna ka diiday inuu furo wax wada hadal ah inuu nala furo annaguna dad diaspora ah oo qurba jooga ma nihin dad deegaanka u dhashay baan dad deegaanka u dhashay oo deegaankoodii raba si nabadgelyo inay ugu noolaadaan nimankaas khawaarijta iyo al-shabaabna dirirtooda qayb ka noqono madaxweynuhu waa naga furi waayey sidaas awgeed adigu qaad guriceel waxaan ogolnahay maamulkii in la geeyo waxaan ogolnahay booliiskii iyo hay'adihii meeshii ay joogeen in la geeyo laakiin annagu dhulkeenna ma ahan dhulkeenna kama socono waa dhulkaan deganayn oo u dhalanay arrintaas madaxweynuhu wuxuu yidhi nimankaas waxaan dagaal ahayn oo runtii ay anfacayaan ama ay leeyihiin ma jirto way nagu soo noolaanayaan way nagu dhex korayaan way nagu dhex kobcayaan taasi marka waxay noqotay waxaan garan weynay galmudugtii horumarkeeda iyo nabadeeda iyo shacabkeeda baraaraheeda aan ka shaqaynaynay in la yiraahdo madaxweynihii dhamaayo loo igmaday ayaa dirir ku qaadaya dadkiisi laynaya barakicinaya arrintaasi waa ay cuntami weyday waxaan ku yiri madaxweyne anaga ayaa xalkii ahlu sunna haya anaa tagaya gurceel baabuurkayga qaadanaya tagi maysid aadina maysid nimankaas waa noo dirir madaxa wadaadadaasna waa keenayna haddii maaragtay ay u hirgasho arrintaas marka runtii arrin ayaan daraabay noqotay in shabaab waxaan garan weynay dee in madaxweynaha galmudug uu shabaab leeyahay maaragtay uu leeyahay isbahaysi inuu shabaab sympathy u hayo inuu shabaab haddii magaalo ay noqoto 2 magaalo laga shabaab qabsadeen hadday gaadiid noqoto 4 gaadiid ayaa dagaalkii gardarrada ahaa bohol lagu qaaday ay ku qabsadeen halkana 17 gaari baawur ku dhow oo baawurtii madaxtooyada ay ku jirtana camaaro lagu qaatay waxaan ku yiri hadday baawur noqoto al-shabaab baa qaadatay baawurtii badneed hadday dhul noqoto dhulkii iyo magaalooyinkii 2 magaalo waaweyn bay haystaan maan xoogan u bedelna xagga ahlu sunna xalkeedana anigayda arrintaas runtii marka waxaan garan weynay iyo inay Dhuusamareeb u degan yihiin 20 kiiloomitir oo 70 kiiloomitir loo socdo meel ah oo 20 kiiloomitir aan loo jeedin arrintaas marka shaki weyn ayay runtii annaga iyo wasaaradda amniga iyo dadka galmudug oo dhanba ay ku abuurtay waxaan garan weynay de projectigan lagu weerarayo lagu dhameynayo dadka galmudug meesha uu ka socdo waxaan rabaa marka inaan gabagabadii ayaan joogaa dadka reer guriceel waxaan runtii de xoog badan baa naga galay galmudug
maamulka galmudugna inuu burburo ama dhibaato gaarto marnaba raalli kama nihin laakiin waxaan ognahay dhibaatada waxa wadaahay inay yihiin al-shabaab oo burburinaya waa ogeydeen Gurceel galmudug ciidankeedii si nabadgelya ayay uga soo baxeen hal qof lagama dilin hadday cadow yihiin maxay u leyn waayeen maamulkii degmada intiisii badnaa wuu joogaa Gurceel buu joogaa maxaabiis meesha taalay annaga maalinkii arbacadaan ka keenay qayb ka mid oo aan dhuusamareeb soo wareejin sidaasay cooperative u yihiin sidaasayna cadow u ahayn sidaasayna rabaan haddeertaan waxay ahayd 20 kilomitir 25 kilomitir baa shabaabku u jireen Gurceel laakiin hadda markii ahlu sunna wal jamaa ay timid 60 kilomitir bay dib u noqdeen al-shabaab yani faa'iidada ku jirta waxay tahay war madaxweyne adoo ciidan 2,000 haysta 3,000 haysta ayay caasimadii 20 kilomitir u jiraan ahlu sunna markay Gurceel timidna 40 kilomitir bay dib u noqdeen 20 bay awal u jireen 60 bay hadda u jiraan waad aragteen shalay baabuurtoodii oo socota oo dhul fog yani operation iyo howlgal ka soo sameynaysa dadka noocaasa oo faa'iidada u leh galmudug oo qaybtoodii kale ay nala joogaan mudug in la yiraahdo qaybtan baan dagaal ku qaadaynaa waa cadow runtii arrintaasi arrin qabata dadka reer galmudug iyo in dadka caqliga leh midna maaha projecti villa Soomaaliya abaabulatay oo ay rabto inay doorashooyinka ku carqaladayso oo ciidamada meesha la geeyana marka lagu laayo ahlu sunna maahana shacabka marka lagu laayo dadka waxaa isaga qaldan ciidanka meesha jooga Gurceel jooga 250 ka mid ah waa ciidankii dawladda oo la leeyahay hadda ahlu sunna ay la safayiin laakiin dulmi ayay ka soo horjeesteen 42 sarkaal oo ka mid ah xoogga dalka oo ka mid ah booliiska iyo nabad sugidda ayaa ku sugan Gurceel oo ciidankii qaranka Soomaaliyeed waa 250 ciidan ku dhow iyo saraakiishiis ayaa joogta Gurceel marka runtii arrintaasi in la yiraahdo ciidankii kala laynaya shacabkii baa la barakicinaya arrintaasi arrin sax maahan waxaana rabaa inaan marka tala soo jeedin aan maaragtay arrinta doorashooyinka runtii waa arrin shaki weyn dhalin karta maxaa lagu soo aadiyey xilligan hadda la joogo in la yiraahdo al-sunna lala dirirayaa oo aan shabaab lala diririn waxaa la rabaa in dadka galmudug la isku diro oo fidno dhexdooda la dhaliyo oo dagaal aan joogsan oo sababa extension markii farmaajo uu hirgeli waayay extensionkii caadiga ah in la yiraahdo extension kale iyo muddo kororsi kale oo ah dalkan doorasho kama dhici karto oo galmudug baa saas hirshabeelle beledweyne la kala fadhiya meel hebel baa saas in inta la yiraahdo arrintaasi doorashada lagu carqaladeeyo madaxweynaha waxaan kula taliyay warqadan u diray inuu qabto doorashadii labada xubnood oo aqalka sare ka harsanayd isla markaasna inuu qabto xubnihii kale oo golaha shacabkana inuu bilaabo waxaan rabaa inaan fariin yar u diro dad badan oo siyaasiyiin ayaa meelahan ku hadlay dadkaasi shalay badbaado qaran markay xamar joogtay waxay ahaayeen ama meelo kaleba ka hadlayba oo taageeray in dadka galmudug ay islaayaan oo ciidamada xamar ka tegay ay laayaan dadkaas shalay badbaado qaran markay joogtay waxay ahaayeen kuwii shiir kula taagnaa ama taagnaa muxuu ahaa marinaay ama taagnaa meeshaan la yiraahdo barmuuda xaafadan howlwadaag dadkii joogay oo ayidsanaa iyadoo dawladdu jirto hadda waxay leeyahay nidaamkii dawladda ee galmudug baa lagu ciyaaraya laguma ciyaarayo nabadgelyada galmudugna faa'iida ugu jirta ahlu sunna inay joogto haddana waa laga dareema halkii isbuuc ama 10kii beri oo ay joogeen dadkii noocaas ahaa oo qadiyadaas aaminsanaa inay maanta inta kala wareegaan ay yiraahdaan ahlu sunno dagaal ha lagu qaado nidaamkii bay burburinaysaa shalay ayagu soo u ekaan maayaan nidaamkii jiray iyo madaxweynihii jiray ka soo horjeeda sooma ekaayeen anu waa ayidsanaa haddana operationkan hadda socdana ma ayidsanin kaasna waa ayidsanaa marka runtii dad kala hadlaya oo dad musharaxiinihii ay ku jiraan dee musharax xil raba oo xil ku raba in dadka la barakiciyo dadka Gurceel aniga waa kursiga Gurceel tagay waa fahmi waaye ninka musharaxa inta mimbar taan oo kala soo istaaga waaqeeya maaragtay yiraahdo maaragtay waa in dagaal la qaadaa waa in ummadda la baabiya aniga kursiga Gurceel galaan garan waaye waa jannadii al-shabaab ay naga raadinayeen oo kale buu la mid yahay kursigaas marka runtii dadka musharaxiinta inay ka fiirsadaan
inay dadka isku soo dhoweeyaan waa leeyihiin, waa dad reer galmuduga, inay u kala dabqaadaan waa leeyihiin, laakiin inay fidnada socota ay ku sii shubaan bensiin oo sidaas ay u noqdaan maaragtay dad ka shaqeeyey fidno oo barakac ka shaqeeyey. waxaan rabaa inaan gunaanadkii aan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka madaxweynihii waa aragnay inuu ciidamo daabulayo. waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha kuma filna warqadaa soo saartay galmudug u soo istaag dib u heshiisiinta. way ku ogol yihiin ahlu sunno, dowladda galmudugna way ku ogoshahay. u soo istaag inaad baajisid dhiigga meeshaas ka daadanaya. taliyaha odawaa iyo xijaar waxaan leeyahay ninkii dhuumanayo dhabarkiisu muuqdo kalaatiin inaad ciidamadii gorgor ee aada soo diri weyday odawaayow ee aad tiri ciidan ma hayo markaan shabaabka baacsanayn inaad maantay gurceel baan ku weerarayaa aad tirahayd oo halkaan ka rartid dembi aakhiro iyo adduunba aan kaa harayn buu noqonayaa. waxaan kula talinayaa ciidankaas inuu ku wajaho dagaalka al-shabaab ama inuu soo ceshado oo xaafadahoodii iska joogaan. xijaar waa la mid, taliyihiisi gobolka banaadir baa jooga meeshaas. ciidankii haramcad oo booliiska soomaaliyeed hoos tagana asaguna halkaasu jooga. ciidankaas waa in sidaas si la mid ahaan ku leenahay. shaqo qaran ma haya hadda, dagaal sokeeye ayuu ka qayb gelayaa ciidankaasi. ciidankaasi dad soomaaliyeed oo nabada ayuu maaragtay baabi'inaya. ciidankaas dib in loo soo cesho oo bartiisi lagu soo celiyo. farxaan qaroolena waxaan leeyahay adeer eedahaadii hore waxba ha ku darsan. horey baa eedo badanay kuu saarnaayeen, hadda reer galmudug mid ah waxba kuu tari maysee dagaalkaas ha ka qayb gelin, hana tegin meeshaas. madaxweynaha galmudug waxaan leeyahay isaga runtii dadka reer guriceel waxay ku soo dhoweeyeen fardo. sanadkii hore 4 Juulaay ayuu booqasho ku wada tagnay. fardihii guriceel iyo dadkii guriceel oo dhan waa aragteen sawirada. meesha ugu dadka badan weeye galmudug magaalooyinkeeda. waxaa loo soo dhoweeyey si gobonnimo ku jirto. dadkii ku soo dhoweeyey maantay madaxweyne magaalo guryahoodii ma joogaan. waxay joogaan dagaal adugu aad ku abaabulaysid cabsi ay ka qabaan bay baadiye u tageen. waad og tahay abaar baa dhulkaas ka jirta, oon iyo maaragtay iyo dhibaatooyin bani aadamnimo xooggan baa dadkaas haya. way banaanbaxayaan, nabad bay ku banaanbaxayaan. cadow lama joogo oo meeshaas meel cadow haysta maaha. meel cid kasta oo maslaxad wadaa ay tegi karto waa meel dadka ahlu sunnada iyo madaxdeedu ay leeyihiin wada hadal baan rabnaa waa. dadkaas looma quuri karo, dagaal looma quuri karo. dadkaas barakac dheeraado looma quuri karo. dadkaas waxay ahayd inaad inta soo istaagtid bannaanka soo istaagtid aad tiraahid reer guriceel dhulkooda ha yimaadaan, arrinta jirtana nabad baan ku xalinaya. waxaan rabaa inaan la taliyo dadka reer guriceel lafteeda. shalay shiirkole markii la joogay waxaa la ilaalinayay saadaq john oo dulmi laga filayey in lagu soo qabto. marinaay markii dagaalku ka socday waxaa la ilaalinayey xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore oo dulmi la rabay in lagu soo qabto ama lagu weeraro. maantay shiikhiina ilaalsada. waxbaa saas dhacay iyo hadda ka hor baa ahlu sunnahana gumaysay xaggay saas ka dhacday, waxaas sheekadu ma taagna. annagoo ahlu sunna waa ogtihiin, ahlu sunna waan nahay, laakiin ururka xubin kama ihi aniga. laakiin ahlu sunna dadka soomaaliyeed oo dhan baa ahlu sunna, laakiin ururkaas xubin kama ihi. weliba sanadii barkii lasoo dhaafay ninkii masaajidda hala fura lahaan u ahaa u xirna. waa ogtiin meeshaan kala jooga. nin kale ugu hadal haynta badan yahay oo ahlu sunna ku kacsan yahay xaggu ku kacsan yahay lahaan u ahaa. haddana maanta waxaan ayidsanahay, waxaan ogahay markay gardaran yihiinna inaan dhihi karo meeshay ku gardaran yihin waa gardarantii. marka laga gardaran yahana inaan dhihi karo meeshaas waa loo gardaranya. waxaa weeye shiikhiina ilaalsada. waxa loo socdo maahan ahlu sunno, waxaa weeye waa mashruuc kale ayaa galay, mashruuc doorasho ayaa galay weerarka gurceel lagu qaadayo. marka guud ahaan dadka reer galmudug oo dhanna xasiloonida iyo waxgaradkiinu ha soo baxaan, hana ka shaqeeyaan. axmed qoorqoor idinkama awood badna. galmudug hadduu maamulka u hayana dee talada reer galmudug buu yeelayaa. hadduu u haayo fahad yaasiin iyo farmaajona dee waxay noqonaysaa siday uga socon weyday waxay rabeen xamar
inay ku samaystaan bay xaggan uga soconayn oo isla dadkii laftiisiiba xagga jooga hadlayseen dalkan difaacayna qarankan difaacayna baa leedihin haddaad ku dhimatid meeshaas dalna ma difaacaysid aakhira seeg iyo adduun seeg waay taliyaha ku hogaamiya dagaalkaas ku raaca xadiis baa ah laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof makhluuqa qof caadiya ku adeeci maysid amarkiisa yeeli maysid haddii ay tahay ilaahay inaad ku caasisid inaad dadkaas ku duushid oo dishid oo naftooda adna aad ku dhimatid ayagana aad dishid runtii aakhira seeg iyo adduun seeg ka weyn ma jirto marka waxaan leenahay ehelooyinka wiilashooda meeshaas la geeyey ee urada gorgor iyo haramcad iyo kuwa kale oo ciidanka kale oo xoogga dalka Soomaaliyeed ku ilaatanaad meesha jooga waxaan leenahay meeshaas dagaal ma jiro waad ogtiin dagaalku meeshu jiro ha ku raacinina nin kursi ilaalsanaya nin kursi nin qandaraas iyo mashruuc kale oo doorashada in lagu boobo raba marka soo dhaawacantiin oo soo dhimatiin waxa la rabaa ciidamada meesha la geeyay inay noqdaan kuwa doorashada lagu dhaco waxaan ku soo gunaanadayaa waxaan u taagnaan doonaa inaan hogaamiyo dhaqdhaqaaq nabadeed oo diida dagaalka galmudug laga wado waxaan leenahay madaxweynuhu warlord maahan sanduuq haba siduu rababa ha ahaado ayaa lagu doortay xoog kuma qabsan dalkaas waxaan leenahay madaxweyne ka joog madaxweyne qorqor dadkaas waa dadkii ku soo dhaweeyay dadka reer galmudug oo dhanna waa kuwii ku soo dhaweeyay doorashadana dan haddaa ka leedahay bannaanka iskeen aragtidaada ku aadan arrinta gurceelna ka hadal dad kale ha wakiilan dad kale ha wakiilan taleefanada xamar laga dirayo ama ciidanka xamar laga dirayna dalkaas kuu difaaci mayaan laakiin galmudug burburinteeda ayay noqon doonaan arrintaas waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado arrintaas anigu nabaddaan u taagnaan doonaa galmudugna insha allah waa ka shaqayn doonaa madaxweynuhuna hadduu dagaalka kusii adkaysto waxaan leenahay xildhibaanada baarlamaanka galmudug inay dowrkooda saxda ah ay qabsadaan ama madaxweynuhu hadduu ku fashilmay dadka reer galmudug inuu isku wado inuu iska casilo xilka sidaasaa u roon u wajiroon xamar iska soo laabto sida hadda uu ku wado waxaa weeye shaqadii galmudugna ma wado shaqo asaga anfacaysa mustaqbalkiisana